كاني قري وادا في بقول لواتني شن مليون كلية العكينيا أيها واحد كويليس قري عبر كيسو هاي سداد بقول سكوير متر قري جاني نبعد ما أدري وين هاي وحواي حقيقة نبتة مركز لقى هالله وهوي هدي هذا مغلى جرتك كاني قري وادا في وحول جمعنا يا وكل منا يا هدي لده ديزاين هدي لده تكنولوجي هدي لده عبر هذه لده يعني وحول بمركل له قريجني ووذا كل مية وأنا مدك استاهلة أقلمة إن لعجة حاجة أتجلسه أم بلاونا قريجني يا من تسلينا إن شاء الله جبيك بنانك هدي أتفيرسه سجود إن بعد ما وحاول الله بيانا هنا يكون كوبين هاي لكن إنجنيير كمستمر كاسي ما دام uu Turkiga ka yimid wuxuu isticmaalo uu adeegsaday agab iyo qalab markaas laga keenay Turkiga waa imported halkan waxaad ku haysataa packing oo laba gaari aan halkan ku qaadayso ayaad ku haysataa packing kan markii laga soo tago dhinacaan gadaal waxa aadaysa qayb kale oo markaas ku dirayso gardenka inta aadan gaarin halkan waxa ku diyaarsan goob yar oo iska yar cariiri kasta ha ahaataba oo la tuubooyinkii oo aad yani washing area ahaan u isticmaali karto marka biyaha waa joogta waa ceel marka waxa muhiimka ah ee la doonayo guriga inaad ka eegto waxa way biyihiisa horta ma yihiin kuwa joogta ah waayo caqabada ugu weyn inta badan dadka ay la kulmaan waxa waaye biyaha soo biyaha hadii uu gurigani leeyahay ceel sidoo kale waa laga taxadare waxa loo sii dheereeyo lagu lamaashay biyaha ceelka in isla sidaas uu lahaado biyaha dawladda ee Ganjooga iyagana ay markaasi si joogto ah xafadani u helaan hadii caqabad ay ku timaadana waxa haysata ceelkii oo halkaas ka qodan sida arki kartaan marka xafadani waa gated community ilaa iyo dhowr unit ayaa ka dhisan 6 unit amal ayaa ka dhisan 6 unitna badankood waa la iibsaday hadda suuqa waxa ku haray kaliya 2 unit marka halkan ayaa waxa ku meeranaysa washing area ahaan ayaa u isticmaalaysa dharkaga imse wixii weelal mise wixii maacun mise wixii kale meeshan lagu dhaqay halkan ayaa lagu meerayaa wali halkan waxa ku haysataa space aad leedahay packing ahaan wali waa u adeegsan kartaa mise waa u isticmaali kartaa kadib wuxuu ku soo geynayaa stega keeskani aadka loo khariye gadaal ahaan laga saaray guriga stega keeskani kadib wuxuu ku dirayaa gardenka halahani ayaad haysataa oo aad dhirtaada ku beeran karto garden ahaan u isticmaali karto dhinacaas kale ayaa hadana jira garden kale oo aad isagana u weyn oo qurux badan balse hadda guriga gadaashiisa ayaa garden yar ku yeelanaysa marka dhinaca gadaal hadii aad ka soo laawano meesha waa meeshii packingka intana waa main dogi albaabkii guriga laga galay balse halkani waxa ku diyaarsan steps oo ku diraya ku geynaya guriga dhinaciisa kale ee gardenkii aan idin sheegay very nice very beautiful inaba caadi ma amala sheekayn karo gardenkani adiga ayaa iskale dhirta cawska jawiga halkan aad ku qaadanaysaa gurigani isla sidoo kale waxa uu dhinacani ka leeyahay meel iska barsad ahaan halkan aad iskaga caawin kartaa roof ay leedahay marka hadii aad halkan dhigato kuraastaada mise miiskaaga iska dhigato waa jawi macaan oo aad markaasi waqti ku qaadan karto dhirta iyo gardenkina waa kaasi dhinacana waa meesha haday halkaasi staircase markaan soo istaagay aan kor idinka soo tusayay gardenkii kara ay looq ahaan taha halkaasi ku geynaya soo gurigani waxa uu halkan ka leeyahay albaabkani oo ku diraysa mise ku geyni karta fadhiga ayaa halkan ka access gareyn kartaa balse inta kama gali doono adhow ayaan ka soo bixi doonaa hadda guriga waxaad u jeedaa in lagu wareejiyo albaabada aan dhahay alwaaxani quruxda badan waa design ahaan structure ahaan darbigi markii la dhisay ayaa waxa lagu qabtay alwaaxani oo bilicda iyo quruxda guriga soo saaraya guriga dhinacana hadii aad ka eegto ee banaanka designka uu yaalo hadii aad ku qabato
design-kiisa iyo quruxdiisa iyo jawigiisa ma laga sheekeyn karo aad ay qurux badan yahay waxa uu leeyahay alwaaxani oo from ground ilaa iyo topkaas la geeyay kadibna ranjiga la mariyay waa ujeedaa waa charcoal grey ahaan iyo waxa ku dhex jira cream inaba caadi maaha kadib waxa lagu lamaaneeyay oo lagu soo saaray isla midabkaasi roofka waa la mariyay nalalkii iyo wixina waa ujeedaa ku digo marka dhinacani sidan ayuu uga yaalaa haddii aan hormarno dhinaca wejiga aan firino isagana design-kiisa iyo habka uu yaalo inaba caadi maaha dhinaca kale wejiga hore ee guriga markaad timaado isla design-ka waa ujeedaa alwaax ma laga tegin waa fluted panels ahaan sidoo kale waxa uu leeyahay balconigii glass windows ahaan loo sameeyay iyo nafaskaasi weyn ee baaxadda leh kadib isla alwaaxi oo waaweyn oo adag ay halkani isagana design ahaan structure ahaan loo geliyay oo lagu soo saaraya marka inaba caadi maaha ma laga sheekeyn karo quruxda iyo ranjiga iyo alwaaxi iyo glasskii iyo biraha la geliyay si la isula beegsaday dabcan waxaa waaye architect-ka ee aan dhahay engineer design-ka sameeyay asagaba waa uu ka taxadiray waa uuna ka fiirsaday parking-ka waa ujeedeen oo aan ka sheekeynay hadayta hore laakiin albaabka weyn ee main door aad ka galayso guriga inta aadan galin isagana dhinaca midigta waxa uu ku leeyahay isla alwaaxi oo design ahaan loo geliyay marka cameraman-ka haddii aan weydiiyo meel walba waxaa la isticmaalay in la geliyo alwaaxani oo design ahaan lagu naqshadeeyo marka sidee u aragtaa ka sheekays male indhaba caadi maaha ma adiga hadlaysaan fiiriyaa ama guriga design-kiisa ku mashquula guriga dhow damba adig dibka daawan doontaa dhib ma laha kamarada isha ku hay design-kani dabcan waa Turkish style gurigani ma laga sheekeyn karo halkan waxa uu ku leeyahay doorbell-kii oo qofka markaasi martida ah mise guriga uu ka garaacay ranjiga roofka la mariyay sidaan kuu sheegay waa charcoal grey creamkii iyo albaabkii wali shaqo ayaa ka socota ha u bixina waxaana waa laga bujin doonaa waa bacdi albaabka lagu keenay because waxaan dhahnay gurigani design-kiisa agabka la geliyay waxaa laga soo import gareeyay gidigood Turkiga albaabka aan u maano halkani weyninkeeda waa ujeedaa waxa waaye ranjiga xitaa waa laga taxadiray oo laga fiirsaday waxaa loo ekaysiiyay midka charcoal grey-ga ah ee guriga exterior-giisa kor iyo roofka laga mariyay so albaabkani inaba caadi maaha aad ay weyn tahay albaabkan intaan kusoo aragnay guriga kale aan soo aragnay miyaa jirta kuwii runda oo kale gurigan wuxuu ku yaalaa Lavington ayuu ku yaalaa gurigani so waxa uu leeyahay peephole-kii oo aad halkaasi ka daawanayso handle-kani aadka u dheer ilaa iyo hoostaasi tagayo cunug yar xitaa hadduu imaado handle-ku waa iska qabsan karaa nin weyn hadduu imaado handle-ka halkan uu ka qabsan karaa inaba caadi maaha so waxa uu leeyahay intaasoo lock cameraman-ka haddaa gudaha soo gasho lockada aad aragto inta lock uu leeyahay ma yaro aad ay u badan tahay halkani iyo halkan marka mid walbana intaasoo lock ayuu leeyahay 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 afar ayuu leeyahay ma laga sheekeyn karo aad ayuu weyn yahay waana culeys ma aha zaa'id khafiif zaa'idna ma aha waa middle nagu xirmayna nagu xirin nagu xirmayso haddii nagu xirmato gadaalaan ka bixi karnaa exit kale ayuu leeyahay gurigani halkanna waa peephole-kii aad ka fiirinaysa qofka markaasi martida ku ah ee albaabka soo garaacayo so design-ka inaba caadi maaha ma laga sheekeyn karo halkanna wuxuu ku leeyahay glass oo translucent macnaheeda waxaa waaye iftiinka waa soo daynaya laakiin waxba ma ka arkaysid qurux waaye inaba caadi maaha ma laga sheekeyn karo gurigii waan soo galnay waan dhex joognaa guri walbo maalmahan dambe design-nada waa la socotiin ninka waxaa jira guri aan ka iibinayna oo gurigii waxa uu uga tagay oo ku nacay markii saa loo soo galo musquul ayuu ku leeyahay albaabka agtiisa waa design walaal musquusha uu ku leeyahay albaabka agtiisa guriga markii la soo galo waxaa loogu talagalay qofka martida ah markuu guriga imaado inuu ku mashquulin raadinta musquusha so qofka markuu saa u imaado guriga uu saa u fiiriyo musquusha uu arkaa hadhow dambe stress iyo walwal iyo walbahaar kuma qabanayso haddii uu xaajo u baahdo inuu ku weydo uu raadiyo musquushi musquusha daaway musquusha
waxaa la rabaa qofka markuu saa u imaado guriga musqusha inuu arkayo horeyna uu ka geli karo marka waxaa la dhahaa clock room ayaa la dhahaa waa musqusha banaanka ee martida loogu talagalay biyaheeda waa joogta inaba caadi maaha waxay qabtaa glass aan dhahay mira kiyogi mise muraayadii oo iyadana markaasi suspended ahaan ah hoosteedana waxaa laga geliyay nal oo bilicda iyo qorada soo saarayo musqushi waa suspended halkana waa flashkeedii waana black in color exterior maxaa la dhahaa midab ahaan markii la hoo si fiican ayaa looga taxadiray looga xushay sidoo kale sinkiga midka la xushay ee la geliyay inaba caadi maaha aad ay u qurux badan yahay sinkiga sama u eko midkii maqaayadaha farxalka si fiican kuwaas u egyahay يعني مسقول ما لو تلاقي ما استمر kuwa gujiga lagu dhaqanayo kuwa ورقة دايزة مسقول ما لو تلاقي سؤال كان نوحه كلها قاندي هيسا أتقشن كرتو حيابها مهم كه لكن أنت بان قاندني وحالو ده خرية لدحكي ليه piping كي مس wire كي ماشين تطوبة بيها كين هاي مسقوشة أنت جلين خرطي هذا وحاجرة قل oo loogu talagalay martida qolkan hadhowto ayaan u imaan doonaa balse aan ku hormarno fadhiga maalmahan dambe fadhiga waxaa waaye in la xisaabiyo waaye because waa hall waxaan meel qaar waxaa lagu dhigtaa aroosyada soo ma si fiican meel qaar waxaa jira hoolal intan la dhan oo aroosyada lagu dhigto xafladaha ma la sheekayn karo fadhiga cabirkiisa ma yaro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iyo bar toban iska dheh wow dheer rahan markii la dhinacan kale markii la lahana iyadana oo arkaysaa u jeedaa mala sheekayn karo fadhiga waxa uu leeyahay jawi aad u qurux badan oo aad dana kala sheekaysan karto balkoniga si sare ee qorasha dhankooda dadka jira waxa uu leeyahay roof wise markii la laho space and inaba caadeen aad u dheer aad u weyn inta uu ku jiro day roofka inta uu ku jiro day chandelier-ga mid kale ayaa halkaas lagu design garay inaba caadi maaha waxa uu sidoo kale leeyahay fadhigani dhinac walbo darbiga ayaa ku yar waa laga taxadaray waxaa la doonayaa mar walbo aadanaha inuu lahaado u yeesho cadceedda uu qaato hawada uu qaato iftiinka uu si fiican markaas u dhuuxo from this corner to that corner waa glass sliding window oo haddana darbigii hawada ayaa lagu cunay isla korkeeda another glass window sidoo kale dhinacani glass window marna albaab ahaan u shaqayn kartaa haddii aad doonto ciyaalka way ku baashaali karaan oo saga ciyaari karaan halkan ay ka badboodi karaan oo ka bixi karaan marka waa laga taxadiray dhinacaasi kale waa albaabkii hadayto aan banaanka markaan joognay idinka soo tusay idin dhahay dhowto ayaan idin soo tusi doonaa ayaa haddana waxaa laga soo geliyay dhinacane oona loo adeegsaday glass window door ahaan oo aad ka bixi karto kuna geynayso balkonigii mise barsadii aan ku dhahay banaanka ayaa ka dhuuxaysa hawada iyo jawiga iyo cadceedda iyo qoraxda iyo gardenkii markaasi aad lahayd inaba caadi maaha garden barsadan yar adayto ayaan aragnay markaan banaanka joognay soo fadhiga ayaa ka access garan karta meeshaan ku dhahay waatan albaabkani ayayna leedahay oo glass sliding kii kala ah fadhiga weyninkiisa markii laga soo tago dhinacani waxaa loo adeegsaday in nashqad yar lagu sameeyo oo qurux badan inaba caadi ahayn looguna talagalay TV wallka sidaan rajaynayo oo aan filayo alaabtani wallpaper ma aha alaabtani waxa waaye alwaax sidiisa loo hagaajiyay ee loo jarjaray lagu dhajiyo meeshii waxaa loo adeegsaday glue ahaan soo maaha sidii dhagaxii kobro camal sax oo wadada la ku arki jiray derbi laga dhigay wadooyinka qaar ayaa ku arki jirtay dhagaxyada waxa la kobro ee la gelin jiray laakiin hadda halkan ayaa lagu sameeyay iyadoo markaasi alwaax yar oo si fiican loo qoray loo hagaajiyay lagu dhajiyay aan dhahay darbigii markaasi TV wall ahaan loo isticmaal lahaa loo adeegsan lahaa halkani socket ayaa ku diyaarsan isla sidoo kale socket-yada waa laga baaraandegay ee fadhiga dhinac walba waxa uu ku leeyahay socket-yadiisa wuxuuna ku leeyahay meelihii laga diminay laga daaray nalalka inaba caadi maaha ma laga sheekayn karo
waxaan kulli waa extra so fadhigani waxa uu leeyahay maadaama uu roofkiisa zaid u dheer yahay u fog yahay roofka wuxuu la adeegsanayaa la isticmaalayaa first floor-ga ee dhinaca kolosha so gypsum ayaa lagu design gareeyay gypsumkiisa ma laga sheekayn karo fadhiga waxa ku furan jikadani ma laga sheekayn karo aad ay weyn tahay jikada intaan u imaanin qolkii martida soo dhow qolkii martida waxa uu dhigmaa xaafado qaar markaad joogto master bedroomkii odayga iyo marwada inab cali maaha soo maha ma laga sheekayn karaa master bedroom xaafado qaar waa qolkii martida ee haddaan joogno very cozy very beautiful jawi degan raaxa ah gypsumkiisa wall art ayuu leeyahay sidoo kale waxa uu leeyahay armaajadiisa oo aad u weyn from wall to wall ah ilaa iyo 5 albaab ayay leedahay markaasi waana cadiin white iyo kadib waxa lagu alxamaday handleska oo madow ah so structure wise ahaan markii loo design ahaan markii la dhaho handleki oo aad u dheer design aad u qurux badan ah oo madow ah iyo albaabkii oo cadiin ah mise waa armaajadii gidigeed oo cadiin ah kadib qolka fadhiga qolka martida aan dhehe waxa uu leeyahay musquushiisa ayuu gudaha ku leeyahay ma laga sheekayn karo very beautiful musquushiisa ayuu gudaha ku leeyahay qofka martida ah markaasi waxa uu haystaa jabigani uu isaga mushaaxayo tuubadan yaqaan oo sidaas u isticmaalayo soo gal gudaha soo gal haddii aad timaado showerkani nabacdi maaha ma laga sheekayn karo waxaa la dhahaa vitra waana imported habkuu design garaysan yahay waa ujeedaa weliga ma aragti showerkan oo kale afka juqda ay gale showerkan oo kale weliga ma aragti weligii ma arkay ma aqaano adiga inta meel oo biyaha ka soo baxay ma arkaysa halkani iyo halkani kadibna waxa uu leeyahay tuubadani oo la socota hadhow ma weydiisay su'aalada sifa aan u hilmaamin shaqadayda ujeeda so waxa uu leeyahay weli tuubadii hoos kadibna glass oo transparent ah musqushi oo iyadana suspended ah waa black designka uu xushay interior designerka in nabacdi maamul laga sheekayn karo so wall tile lagu sameeyay waa very beautiful waa slippery oo wall tile ka mar walba waxa lagu talagalay inuu ahaado sidaasi kadib meesha flashka oo musqushi lagu flashayn iyadoo suspended ah halkana wuxuu ku leeyahay meeshii farxalka iyo muraayadii oo designkaasi ah inaba caadi maaha so qolkani martida waxa uu leeyahay isagana wall art kani oo aad u qurux badan hadii dabcan waa ujeedaa waa midkii fadhiga oo kale aan ku soo maraynay kadib waxa uu leeyahay gypsum kiisa oo aad u qurux badan isagana aan laga sheekayn karin downlightaas qurux badan la geliyay snake lights gudaha lagu dhex qariyay very nice waa wada white wall iyo roofka iyo armaajadii white waaye kadib tileska ayaa waxaa markaasi laga dhigay alwaax ahaan waa midkii la dhahay wooden kadib wall artkii ayaa sidaas lagu sameeyay qaanad aan dhahay dirishadiisa mise daaqadiisa waxaa waaye open oo glass ah jikadani kolley ani ahaan shakhsiyan inta guri aan soo arkay aan soo duwaayay this is one of the best kitchens markii la dhaho dee soomaalid baan nahay soomaaliduna waxay jeceshahay meel walbo in markaasi cabirka ay ka taxadarto gurigani waxaa dhisay nin Soomaali ah una garanaya una dareensan yahay dadka iyo waxa ay markaasi rabaan jikadani waxa waaye cabirkeeda yani waxa laga siiyay 800 square meter-kii jikada waxa laga siiyay kaalin muhiim ah ayaa laga siiyay waxani oo dhami waa jikadii ma laga tagin oo ma la joojinin mana la deynin gypsumkeedii kadib halkani waa meeshii fringerka inta ay ku galaa fringerkaaga sokodkiisana waa uu leeyahay kadib waxaa halkani kugu samaysan armaajadii oo iyadana inaba aan handleka weli ma loo sameynin kolley sasaana loogu talagalay handleka inay
sidaas loogu talagalay handle la'aan saas loogu talagalay miya portable Allah soo waxa ku furay lugta ku furay miya maya gacanta gelisay korkana ka soo jiidi maya oo jeeda halkan waa storage waxa isticmaalaysaa inaad maacuuntaada iyo wixii markaas halkan ku qaadi karo aad ku gurato sidoo kale waa fully fitted jikadani way ku imaanaysaa alaabtani midkii ovenka halkan aad ku samaysanaysa buskutka iyo keega iyo waxyaabaha markaas ovenka loogu talagalay inaad ku samaysato sidoo kale waxa uu leeyahay Beko 2 years oo warrant ah iyo kuleysadii oo iyadana halkan ku diyaarsan meeshana waa qaanad kale waxa ku qarsanaysaa waxyaabaha aad rabto inaad carruurta ka qariso halkan ay gelinaysaa lag saan ku dhahay isla wali yani laga soo bilaabo koonahaasi luuqaasi ilaa iyo dhinacaasi kale waxa waaye wada qaanada oo aad ku keedsanayso waxaaga granite-ka inaba caadi maaha aad ayuu qurux badan yahay waa design laga taxadaray sida loo xoshana dabcan waxaa laga baaraandegay in loo ekeysiiyo gurigii iyo nashqadii uu designerka markaas uu ku socday jikada waxa ay leedahay sinkigeedii oo halkani kugu diyaarsan halkani biyaha waa joogta sida aan sheegnay tuubadana waa ujeedaa waa flexible halkaas ay qabanaysaa haddii aad doonaysana waxaa ka dhigi kartaa mid sidaas u daysa haddii kale designkaas ka dhigaysa haddii kale sidaas ay u joojinaysaa maxaa la haddaa laabtan ama waa lisi kartaa sidii taas oo lisi miya oo lisi kartaa marka biyaha yaana israafinin waa tusaale aan idin tusayne tuubada iyo markaasi designkeeda nima wax la siin weligii ma fahmi karo arrintaas sax isla hoosteeda toobka waxa waaye gidigood waa qaanada ilaa iyo aan ku tuso inta laga soo bilaabo 20 saan kulli ilaa iyo inta waxaas kulli waa qaanada oo laga sheekayn karo halkan waxa kugu diyaarsan marka jikada ayaa kugu diyaarsan halkani 1 2 midi weyneed 3 4 exhaustkii qaaca ka baxay qaanadani oo muraayad leh dhinac walbana socket ayaa kugu yaala socket iyo socket ina bacdi ma laga sheekayn karo gypsumki downlights very nice aad ay weyn tahay marka laga soo tago fadhiga iyo qolkii martida iyo jikadii iyo masquushii banaankan ku arkaynay martida underground hoos waxa loo degayaa wax aan weligay arkin kale soo deg come on ma aragtaa very spacious halkan aan ku daaro korontada ilaa halka weli way socota underground basement halkani waxaa ka dhigi kartaa intaasoo qol intaad kala gogoyso ayaa waxaa ka soo saari kartaa qolol aad u badan haddii kale waxaa ka dhigi kartaa fadhi haddii kale waxaa ka dhigi kartaa meel oo cinema camal oo filimaanta lagu daawado haddii kale waxaa ka dhigi kartaa meel gym oo biraha ku qaadato waxaa rabtaa ka dhigi kartaa halkani waxaa waaye underground oo aad iyo aad u weyn ما شاء الله very huge إنه بعد ما أي وين تهي halkan waxa kale albaab halkan albaab ay kale leedahay waxa ku dhex farsamaysan qol kale maybe ma garana waxa loogu talagalay laakiin hadda waxa ugu jira alaab ay ugu jirta sidaas ay u xireen so space kani inna baad ma laga sheekayn karo aad weyn yahay
waxa ka dhigi kartaa waxa doonto sida rabto ayaa u adeegsan kartaa mana laga sheekeyn karo very cozy kor aan marka kor iyo qolasha jiifka ayaan eegaynaa hadda soo dhawaada qolka koowaad gurigani qolka koowaad marka soo gasho dhinacani waa masquushiisa dhinacani waa armaajadiisa halkan waxa lagu sameeyay wall art aad u qurux badan dhankan kalena waxaan waaye daaqadii iyo albaab sliding window oo glass ah markaasi jabigana ka daawanayso bilicda iyo quruxda iyo xaafada Lavington wow very beautiful mooska day geedaha dhirta jabiga ma laga sheekeyn karo balcony yar oo aad leerta u qaadan karto gypsum ayuu leeyahay downlight snake lights wax walba waa u dhameystiran yahay musqushiisa halkan ay ku diyaarsan tahay qolkani markaad ka soo baxdo halkan waxa ku diyaarsan study roomka intaadan aadin halkan waa hallway-gani waa meeshaan ku dhahay dayto fadhiga balcony-ga ee markaas dadka kor jooga iskala hadli karaan iskana arki karo iskana daawan karo kadib waxa uu leeyahay isagana balcony kale weyn oo banaanka markaas ku diraya aad iyo aad looga taxadaray loogana shaqeeyay marka sidoo kale gypsum-kii hadayto ee fadhigan ku dhahay kor waka hadda waan soo dhawaanay meeshan ay ku diyaarsan yahay balcony-ga kale aan ku tusay halkan waa balcony qaybta kore garden-kii hoos ayuu ka aaday hadda xaafada Lavington dhankani ay markaas ka qabanaysaa dhismo ayaa halkan ka socda waa estate kale mise xaafad kale iyadana markaas mardhow insha Allah aydin soo tusi doono showroom-ka markuu diyaar noqdo laakiin halkani waa balcony oo guriga uu lahaa inna baad maaha ranjigan ku sheegay waa ka nalalkii design-ka iyo sida uu yeelan markaas oo jeeda qolka kale ee markaas labaad ee jiifka ah halkan ay isagana ku diyaarsan yahay space markii laho aad u weyn yahay waxa sidoo kale leeyahay balcony-giisa dhinaca wuxuu jiraa frontiga exterior ahaan markii laho dhinaca ayuu jiraa waa meel oo sidan loo marayo iyadana markaas ku geynayso alwaaxyadii design-ka loogu talagalay aan ku tusay haday to kor halkan ayaan ugu imaanay quruxda badan waa alwaax aad u weyn marka qofkii lahaa gurigan kulli qarash mu ka absanin oo alwaaxyadii sidooda ayuu markaas ku galiyay so balcony-gani wuxuu wajahayaa dhinaca banaanka ee guriga iyo xaafadii markaas aad ku dhex jirtay sidoo kale alwaaxina dhinacana waa ku leeyahay marka tan wuxuu soo saaraa design-kii iyo quruxdii iyo bilicdii marka qolkani ma ka sheekeynay waa aragtaa waxba qaanadihiisa waa ujeedaa armaajadii masquushiisa halkani kadib waxa uu leeyahay space-kani aadka u weyn isagana waxa uu leeyahay wall art-kani sidaas loogu sameeyay qolka kale ee saddexaad ee jiifka ah waa kani spacious very cozy very beautiful wardrobe-kiisi waa kani masquushiisi waa tani ma laga sheekeyn karo inna baad maaha wall-kaasina waa uu leeyahay gypsum-na waa uu leeyahay balcony yarna waa uu leeyahay isla midkii hore oo kale waay inna baad maaha waxaan hadda u soconaa markaasi oo aan tagaynaa horta stairs-kani waxa lagu sameeyay granite oo madow ah darbigana uu cad yahay dhinacana galaaska ka jira waa laga taxadaray color wise markii la dhaho master bedroom-ka ayaan u tagaynaa master bedroom kale ila arag master bedroom markii la dhaho kani waa ka tagay master bedroom kani anigu waxaan ku magacaabi karaa oo aan dhihi karaa qol weynaha aabaho qol weynaha hooyadood qolkani inna baad maaha wali waa dhax socnaa waxaan dhax socno qol kale ma gelin wali qolkii la dhax socda qolkani waa qolka jiifka waxa loogu talagalay xaajiga iyo marwada inay halkani markaasi ku soo hoydaan inta hadda aan dhax socno oo jeeda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 halkana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuma dhaxyaasho maxaa la dhinaca armaajada ee la dhiganayo alaabta iyo agabka dharka
kuma dhaxaysho balcony ayuu leeyahay halkan ayaa ka daawanaysaa xaafadda Lavington iyo dhirta iyo geedaha dhinankana waxa uu leeyahay fluted panels oo loogu talagalay fluted panels marka la wallpaper ma aha waa panelska caadiga ma aha waa alwaax oo sidiisa ah la soo qoray from this wall ila iyo dhinacani ayuu waxa uu leeyahay fluted panelka gypsum ayuu leeyahay downlight ayuu leeyahay imaaw dhanka dharka la gashto ee wardrobe-ka from this corner ko laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban iyo kow waa wardrobe keliya armaajo keliya wow ليس عندي قول كما شكيك مسخوشيسا صوغل مسخوشيسا على وان درنيسا إلى ميريسو هداد مغلق جرتي واتا bathtubka ayuu leeyahay wuxuu sidoo kale leeyahay dhinaca qubayska isla showerka hadaytan ka soo sheekeynayna oo kale designkii glass ayuu qabaa suspended toilet sidoo kale wuxuu leeyahay laba sink oo markaasi gacmaha lagu dhaqanayo muraayadiisa aad ay weyn tahay snake lights ay hoos kaga jiraan halkan ay ka gelinaysaa socketka dhag snake lights ayaa ku daarnaysaa inaba caadi maaha ma laga sheekeyn karo gurigani waxa waaye xaafadda Lavington markii la dhaho waa guryaha ugu casrisan ugu qaalisan oo qurux badan markaasina laga taxadaray si fiican loo naqshadeeyay loogana shaqeeyay engineerkii markaasi dhisana uu yahay mid aad iyo aad uga taxadaray wax walba markaasi uu sameeyay design markii la dhaho because qaanadan in laftirkeeda waa u jeedaa from gurigi ugu hooseeyay ilaa iyo guriga ugu kore designka waa hal handle-ka xitaa waa isku design same design balcony ayuu leeyahay aad weyn oo halkani aad ka daawanayso xaafadda balcony-giisa inaba caadi maaha aad ay weyn yahay master bedroom-ka gypsum-kaas ayuu leeyahay download price-ka ayuu leeyahay qolka shanaad ee ugu dambeeya waa ka qolkan waa iska extra waxaa loogu talagalay carruurta inay markaas iyagana halkani ay kaga jiraan gypsum-kii ayuu leeyahay daaqadiisa waa ujeedaa waa glass kan masquul ma laha qaybta ugu dambeeya guriga kor rooftop-ka markaad timaado halkani نفاس آد وين بلع عبرهان مركي الله very cozy ماشان وحلا وطلق لينا دركا كورتو عرورت سيجا عيران دي أدوني سينا جيم كاكريغتنا على بتاع هالكن أحكي ستو وحواي very beautiful كشكه هيجا هسا وساك محا بير هروس وقادم ويسين حوا كوير دفتينه كوبت صح بس كوبت بدنا أم حوا كان بير هالكن دك إنما عالم ماشان مركا وحليلها الواحني أدكو قروح دبضد أو أن هوس كسب باللونه إلا يكرر أنا ويمان الواحني وحاول part and parcel of the house وحاول نقشد يو ديزاين كا يلوس وصاريا وحاوليه هاي إن لوا والهان وحنا لو ترجلا إن مركزي بدقبك عرفت يهان مركز لو ترجلا halkana in drainage ahaan ay markaasi biyaha uga baxaan sidoo kale waa slope ahaan markii la fiiriyo dhinac walbana waxa uu ku leeyahay exit-ka biyaha marka drainage ahaan ka loo isticmaalayo biyaha halkani ayay ka baxayaan so waxa ku waran kartaa dharkaaga marka meerato halkan ay ku meeranaysa sidoo kale waxa uu isticmaalaysaa wax walba oo aad doonayso waxa sidoo kale halkan ku leeyahay sinki aynaba caadi ahayn adigana markaasi uu isticmaalayso in nadaafada aad ku dadaasho mar walba very beautiful aad weyn laguma sheekeyn karo marka gurigani waxa uu suuqa ku jira maalmo kooban waana 125 milyan cabirkiisana waa 800 oo square meter sidoo kale waxa uu leeyahay wax walba markaasi guri lagu xulan lahaa cabir ahaan markii loo qiyaas ahaan markii loo design ahaan markii loo xaafadda ku yaalo jawiga markaasi haysto iyo gurigani شيء رانجين كي هوسن كوارق نسوي ماكو رنجيك صح إلا كورنيس كو يونيفورم ويا مديسة ويونيفورم يونيفورم شاتيا من الوصول قوانا مسانا ومرينا وتشاكل جراي فاميلي جراي واي
كستو جري أو ير علوس charcoal grey دهان ويرنجي قاعد ياو فيرسو وهنا كوسو بحياة ده إلا يقوليها كلام مركا فيرسو إك إلا يدنا عس مركا فيرسو وإيش هيستا وين سليين كاسي ومتكلا ويسليين رنجي ديزاينكي وحلبة ويسليين كاسي أيا كير رقيسا وبقول 5 مليون عبر كيسة وحواي تضو بقول سكوير متر لكن كان عبر كيسة وسداد بقول أو سكوير متر وهنا كاسي كديري هاي 2 مليون 125 مليون iyo gorgortan iyo wada hadal gurigani wuxuu ku yaala xaafadda Lavington insha Allah isagoo dhameystiran waa ka bogateen waa aragteen waana u jeedaan insha Allah gurigani waxa waaye mid dhameystire wax walba oo markaas lagu xulan lahaa guri waxaan dhahaynaa kani khasri waa ka tage guri waxa uu sii marayaa nolol waa lifestyle waa qasri hooy haddaad maqli jirtay waa kan soo iibso soo wac lambarka qaybta description-ka uu ku qoran yahay ilaa iyo kulanti dambe intaan idinka tusi doono guri kale ciao mac salaam